aarsi midka ugu xoogan aad u geysan karto qof aanan muhiimad ku siinaynin oona iska kaamoogaysiinaya aananna kugu tirinaynin dadka ugu horreeya ee muhiimka u ah waa inaad iska qariso adigoonan ogaysiin oo aananna siinin wax hordhac ah markaad had iyo jeer siin jirtay muhiimad isaguna yacnii qofka kalena aad si fiican u ogaatay inuusan muhiimad ku siinaynin isaga tag noloshiisa adigoonan xumaan kale u geysan ka guuridda kadiska ah ee aad ka guurayso qofkaasi iyo ka tegitaanka aad ka tegayso qofkaasi noloshiisa waxay ka dhigaysaa inuu dareemo inta uu la egyahay qiimahaaga iyo muhiimadda aad ku lahayd noloshiisa iyo waxa aad u haysay balse uu mooganaa isagu waxaad ka dhigaysaa qofkaasi inuu dareemo inuusan waxba ahayn la'aantaada wuxuu dareemayaa in noloshiisu ay bannaan tahay oo ay cidlo tahay markaad ka tagtay kadib maxaa yeelay si fudud ma heli doono qof siin doono muhiimadda aad siin jirtay oo kale kadib markii aad adiga ka tagtay wuxuuna ogaan doonaa inuu waayey insaan midka ugu qaalisanaa noloshiisa insaan ama qof dhif ah oy adag tahay in la helo mar kale isagoo kale markaasi ayuu ogaan doonaa qiimaha aad lahayd markaasi ayuu jeclaysan doonaa inuu wakhtigu dib u soo laabto oo uu mar kale soo maro wakhtigii aad adigu ahayd maciisa markaasi ayuu jeclaysan doonaa inaad u soo noqoto balse nasiib darro waa xilli aad adigu tagtay dadku badankooda ma fahmaan oo ma gartaan qiimahaaga ilaa ay ku waayaan adiga haddaba walaalayaal waxaan idin leeyahay qof kasta waa inuu gartaa qiimaha ay leeyihiin dadka ku hareeraysan si uusan u shallayn maalin uusan awoodin inuu soo ceshto wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh